kumanaan dibadbaxayaal ah oo u badan taageerayaasha xisbiga saddexaad ee dalkani koonfur africa economic freedom fighters oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano EFF ayaa socod dheer kusoo maray jidadka halbowlaha u ah magaalada Cape Town ee dalkani koonfur africa iyagoona ugu dambeyn isugu soo ururay iridda hore ee aqalka baarlamaanka dalka koonfur africa. mas-uuliyiin ka kala socotay xisbiyada EFF iyo xisbiga talada haya ee African National Congress ayaa dibadbaxayaasha kula hadlay iridda hore ee xarunta looga arrimiyo dalkani koonfur africa iyagoona madaxweyne Zuma ku eedeeyay in uu la degay dhaqaalaha dalkani koonfur africa waxayna sidoo kale ugu baaqeen in uu xilka isaga dego. That the core is that our problem is that our president is not carrying out his duties in terms of Section 83 of the Constitution. He is not upholding, defending and respecting the letter and spirit of the Constitution. We will first have to sing the national anthem. We sing our national anthem, comrades, so that at the end of the day we will be able to proceed. banaanbaxa ayaa inta uu soconayay waxa uu hakadgeliyay isu socodka dadweynaha iyo sidoo kale goobaha ganacsiga Soomaalida ay ku leedahay dalkani koonfur africa. miya waad aragtaan maanta kulli mudaharaadka soo weyn yahay waa socda meel kastaba waa wadooyinku way xiran yihiin oo waxay dadkii baa xiray jaamkii baa xiray ganacsiyadu way xiran yihiin inkastoo wax saameyn oo weyn oo Soomaalida ayna soo gaadhin oo ganacsiyadu wax dhib uga imaanin laakiin way iska cabsanayaan oo 8 bishii Agost ayay ahayd markii madaxweyne Zuma uu ka badbaaday mooshin la doonayay in xilka looga xanyuubiyo waxaana xilligaasi kadib soo tarayay banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalka iyadoona banaanbaxyadii qaar ee ka dhacay dalkani koonfur africa ay saameyn ku yeesheen goobaha ganacsiga Soomaalidu ay ku leedahay magaalada Cape Town ee dalkani koonfur africa. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.